shirkan ayaa looga hadlayay sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka soconaya koonfurta gobolka Sool. shirka oo socon doona 3 maalin ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Qaatumo, siyaasiyiin, aqoon-yahano, waxgarad, haween iyo guud ahaanba jaaliyadda East Africa ee Qaatumo State. warmurtiyeed hordhaca oo laga soo saaray shirka ayaa loogu baaqay dhinacyada dagaalamaya in shuruud la'aan ay dagaalka ku joojiyaan isla markaana wax walba ay wada hadal ku bedelaan. wasiirkii hore ee warfaafinta Qaatumo State Axmed Gacmayare oo warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi ayaa soo koobay muhiimadda shirka isagoona intaa kadibna ku wareejiyay afhayeenka jaaliyadda Qaatumo State ee East Africa Cabdulqaadir Firdhiye oo aqriyay warmurtiyeedka shirka. waxaa ka soo baxay maanta warmurtiyeed xambaarsan dhiilo iyo murugo dhibaatada ka taagan koonfur galbeed gobolka Sool gaar ahaan degmada Dharkeengeeyo, Dhumay iyo nawaaxiga xoolo daaqeenka ee ay dhibaatada badani ka haysato beesha kaliya halka wada degta. laba beelood ma dadkaasi waa hal beel. dhibashada badani dhibaatada badani dhexmartay ilaa hadda nasiib darro weyn oo ay ka muujiyeen wixii ku dhintay ay ka tacsiyeeyeen, inta dhaawaca ahna ugu duceeyeen, dadka halka ku dhaqana ay baaqiyo niyad ah oo ehelnimo ah iyo talooyin ay ugu soo jeedinayaan. warmurtiyeed ku saabsan shaqaaqada ka dhacday Dharkeengeeyo. shirka wada tashiga Qaatumo wuxuu ugu baaqayaa beelaha walaalaha ah ee dirirtu dhawaan ku dhex martay koonfurta gobolka Sool in ay joojiyaan dagaalka macna darrada ah ee aan labada dhinac midna wax faa'iido ah ugu soo kordhayn. shirku wuxuu bogaadinayaa dadaalada nabadeed ee ay gacanta ku hayaan odayaasha waxgaradka dhulbahante ee muddada fadhiyay magaalada Dhumay. isla markaana wuxuu shirku ku baaqayaa in ciddii nabadda diidda dhinac looga soo wada jeesto. waxaan ku rajaynahay in aan beelaha isdilaya walaalaha isdilaya dhinacna aan nabadda diidi doonin insha Allah ta'ala haddii Alla ka dhigo. ka soo qaybgalayaasha shirku waxay ku baaqayaan in loo wada guntado sidii loo soo afjari lahaa dhammaan colaadaha ka taagan deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ama maamul goboleedka Qaatumo State. shirku wuxuu ka digayaa in colaadaha halka ka dhasha ay wax u dhimayso waxna aysan ka tarayn nabad waarta oo ka dhex dhalata beelaha deegaankaas gobolka Sanaag. waxa uu shirku hoosta ka xariiqayaa in aan loo baahnayn colaad ka sii jiitanta deegaanada dadkaas ay wada degaan. haddaba waxaanu mar kale ugu baaqaynaa walaalaha ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool in ay joojiyaan colaadaha. waxa iska cad waa markii ugu horeysay ee dad walaala oo tiradoodu gaarayso 50 nin oo wada dhashay oo ilmaadeera oo isu abti oo ilmaabtiya ay ku dhintaan dagaal macna darro ah intii ka dambeysay dagaaladii daraawiishada deegaankaas ka dhacay. waa wax aad iyo aad looga xumaado. waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka labada beelood inay caqliga ka horeysiyaan caadifada, inay joojiyaan colaadda, in ay dib u milicsadaan waqtiyadii wanaagsanaa iyo nabadda ay ku soo wada waareen iyo macaankii ay isku haysteen. maalmihii u dambeeyay ayaa dagaallo ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen waxa ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Sool, waxaana ay soo taraya baaqyada ku aadan sidii loo damin lahaa xiisada halkaasi ka taagan. Cumar Cabdi Xasan, Cumar Caaqil, SNTV, Nairobi.